waxa uu ahaa sarkaal ku-xigeen ka tirsan ciidamada booliiska xilligaasi ka horna waxa uu ka mid ahaa ciidamo si khaasa loogu soo tababaray dalka Jabuuti si ay u ilaaliyaan madaxda sare ee dalka. sarkaalka aan ka hadlayaa waa Nuur Ibraahim Mahadalle. waxa uu ahaa nin hadda ka hor ay qabteen ururka Al-Shabaab kadibna ay sii daayeen. bishii Juulaay ee sanadkii hore ayaa laga ceyriyay ciidamada booliiska Soomaaliya kadib markii lagu helay inuu qorigiisa lunsaday. intaasi wixii ka dambeeyay waxa uu inta badan ku sugnaa magaalada Muqdisho inkastoo xilliyada qaar uu tagi jiray magaalada Beledweyne. 17 Abriil ee sanadkan waxaa telefoon u soo diray sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Axmed Guure kuna magac dheer Cali Qoyane kana mid ah saraakiisha ka howlgala deegaanka Maxaas oo uu ka soo jeedo. waxaa sarkaalkaasi ka tirsan Al-Shabaab uu u sheegay inay yaqaanaan shaqadiisa haddii uu doonayo inuu shaqadaasi si madax bannaan u qabsadana uu ururka howlu fuliyo. markii aqbalaad laga helay waxaa loo sheegay halka uu tegayo iyo alaabta uu soo qaadayo oo saarnaa baabuur loo tilmaamay halka uu ka joogo magaalada Beledweyne. waxaa loo sheegay inuu alaabtaasi ka qaado Beledweyne oo uu geeyo magaalada Maxaas isaga oo boorso ku wareejiyey alaabtii uu waday oo ku jirtay gasac kuwa caanabooraha lagu keeno ah. agabka ku jiray gasacana waxa uu ahaa qarax. waxaa loo sheegay in marka uu tago magaalada Maxaas uu alaabtaasi ku wareejiyo mas-uulka ugu sarreeya magaalada oo ah guddoomiyaha degmada Maxaas Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale oo ku magac dheer Afcaday. 4tii galabnimo ee 18 Abriil Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu la kulmay Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale guddoomiyaha degmada Maxaas. saraakiisha amnigu waxay galka baarista u sheegeen inay labadoodu isku afkarteen inaysan shirqoolka ay maleegayaan cid kale la wadaagin. Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ku qanciyey Nuur Ibraahim Mahadalle inuu qaraxaasi ku aaso maqaayad lagu iibiyo jaadka oo ku taala magaalada Maxaas. waxaana uu sheegay in haddii uu qof kale u diri lahaa hawshaasi inuu qabto ay taasi fashilinayso qorshaha sida lagu ogaaday xog waraysigii laamaha amniga. Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu weydiiyey Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale cidda loo wado qaraxa waxaana guddoomiyaha degmada Maxaas uu ugu jawaabay inay dad badani dhibaato ku hayaan loona wada mid ka mid ah dadka dhibaatada isaga ku haya. waxa uu u sheegay in dad badan ay ku kacsan yihiin. Rashiid Cusmaan Cabdi waxa uu ahaa nin firfircoon oo yaqaana sida loola macaamilo hay'adaha gargaarka. waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka magaalada Maxaas. waxa uu ahaa ninka loo waday qaraxa. Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale guddoomiyaha degmada Maxaas ee xilligaasi waxa uu ku eedeynayay Rashiid Cusmaan Cabdi inuu xitaa isaga dacweeyey hay-adihiina uu baqshada u diray isla markaana uu ka hor keenay dadka ganacsatada ah ee magaalada. waxaana mas-uuliyadda xiriirka xumaada ee uu la lahaa hay-adaha gargaarka iyo ganacsatada uu saarayey guddoomiye ku-xigeenkiisa Rashiid Cusmaan Cabdi. waxaa la soo gaaray 19 Abriil waxaa bamku uu ku aasan yahay maqaayadda lagu gado jaadka ee degmada Maxaas. maqaayadaasi waxaa lagu ballamiyey Nuur Ibraahim Mahadalle inuu ka qaato marduuf jaad ah. waxaa sidoo kale ku ballansanaa inuu yimaado Rashiid Cusmaan Cabdi guddoomiye ku-xigeenka degmada Maxaas oo isna ku ballansanaa halkaasi inuu ka qaato marduuf jaad ah. ma cadda ilaa haatan in Rashiid Cusmaan Cabdi shakhsiyaadka shirqoolayay ay u sheegeen inuu halkaasi ka doonto qaadka iyo inuu isagu iskiisu yimid. Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu gogladay maqaayadda haddana wuu ka kacay isaga oo iska dhigaya inuu soo qaadanayo sigaar iyo shaah. waxaa gogashiisii ku fadhiistay 3 nin oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cusmaan Cabdi. waxaa mar keliya la maqlay qarax kaasi oo ka kacay maqaayaddii lagu iibinayay qaadka. qaraxaasi waxaa ku dhintay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Rashiid Cusmaan Cabdi. kadib markii qaraxaas uu dhacay booliisku waxay bilaabeen baadhitaan. booliisku waxay sheegeen in qofkii ugu horreeyey ee ka shakiyaan uu ahaa Nuur Ibraahim Mahadalle. sababtuna waxay ahayd inuu muddo ka maqnaa magaalada Maxaas uuna dib ugu soo laabtay maalintii ka horreysay qaraxa. isla habeenkii qaraxu dhacay ayaa la qabtay Nuur Ibraahim Mahadalle. maalmo kadibna waxa uu qirtay laamaha amniga inuu lug ku lahaa shirqoolkaasi. waxaa sidoo kale uu sheegay sidii loo qorsheeyey iyo dadkii qaybta ka ahaa. bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay waxaa xeer ilaalinta Soomaaliya ay xireen guddoomiyihii degmada Maxaas Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale. 17 bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayaa maxkamad la soo taagay 3 eedaysane kuwaasi oo kale ahaa Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan, Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale guddoomiyihii degmada Maxaas ee xilligaasi, iyo Nuur Ibraahim Mahadalle oo hore uga tirsanaa booliiska Soomaaliya. 30 bishii Oktoobar waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay gaadhay xukun kadib markii ay kiiska dhageysanaysay muddo ku dhow 2 toddobaad.
guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal: 1 cali axmed guure cali qoyane oo maqana ah. 2 nuur ibraahim mahad alla 42 jir ah. 3 cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale 57 jir ah. maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay: 1 dembiile cali axmed guure cali qoyane oo maqana ah. 2 dembiile nuur ibraahim mahad alla. waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum rashiid cusmaan cabdi. 3 dembiile cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale. waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. sida aad maqlayseenna sheekh cabdiraxmaan cilmi cawaale waxaa lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii garsoorayaashu ay isku raaci waayeen xukunkii dilka ahaa. isaguna waxa uu ku dooday inuusan si toosa ugu lug lahayn dilka rashiid cusmaan cabdi. qareenkiisa ayaa u sheegay maxkamadda in sheekh cabdi uu howlo kala duwan oo dowladeed ka qabtay magaalada Maxaas, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhismaha xabsi iyo dibudhiska xafiisyada dowladda. waxayna ku doodeen qareennadiisu in haddii uu al-shabaab gacansaar la lahaa aysan howlahaasi suurto galeen. waxa uu sheekh cabdiraxmaan cilmi cawaale maxkamadda u sheegay inuu soo wici jiray xaaladda magaaladana uu ka waraysan jiray sargaalka ka tirsan ururka al-shabaab cali qoyane, waxaana uu qirtay inuu handaday hadda ka hor. cali axmed guure waa ii hanjabi dhowr mar uu soo wacay dowladda ridada xaad u gasho wiri war adiga dooqaad ku gashay nimankan shayaadiinta ana hadduu la raali ka noqdo dooqaygaan ku galay waan edab daran tahay daay saddex mar waa nin macnaha ku saleedan shabaabku dhowr nooc u noqdaa nin haddii macnaha uu nimanka shabaab galo caradiisu isaga qaraabta hadduu la raali ka noqdo dadkiisa waa nabadgelya midna ehelkiisa ilaahay ku saleedaa nin ilaahay ku saleeday maxaas waa hadduu la leedmo dhowcil waa soociye oday waa soociye cid kasta soo wacay hadduu la ilaahay raali ka noqdo. guddoomiyaha cusub ee degmada Maxaas cabdi muumin cilmi cabdixiish waxa uu isku dayayaa inuu nabadeeyo magaalada isla markaana uu dhayo boogihii ka dhashay dilka foosh xun ee ka dhacay magaaladaasi. waxa uu ka gaabsaday inuu wax badan ka sheego kiiska ninka xilka uga horreeyey. hase yeeshee waxa uu ka hadlay dhibaatada ay deegaanka ku hayaan ururka al-shabaab, gaar ahaan sargaalka lagu magacaabo cali axmed guure cali qoyane oo ka soo jeeda deegaanka Maxaas. ninkan shabaabka ka tirsan sargaalkee la yidhaahdo cali axmed guure nin caynkee weye maxaad nooga sheegi kartaa? horta ninkaasi maxkamada xukuntay horeyna uu xukunaaba, marka maxkamadda xukunkaas waa kala soo degdegtay. maaragtay mar horeetooda inay xukunkaas ay soo dedejiso ayay ahayd ayaan ka rabaa. runtii wuxuu ku leeyahay saameyn degmada, saameyn ayuu ku leeyahay waayo waa degmadii uu ku dhashay oo kusoo barbaaray. qofkuna markii qofka uu la dhashay oo lasoo barbaaray oo yaqaano way u sahlanaa kartaa inuu soo waco ama xiriir uu la soo sameeyo. wax kaleeto inuu al-shabaab ugu bedelan yahay ma lahan. al-shabaabka maaragtay dagaalamuu ka mid yahay, argagixisada wax gumaaduu ka mid yahay, kuwa falalka argagixisanimo sameeyo ka mid yahay, kuwa hadda maaragtay dadka maxkamaddu ay xukuntay maran hadaabiyey oo kow ka yahay. ninka dhintay ninka dilay maaragtay ayuu kow ka yahay. saameynta uu ku leeyahay marka uu ugu duwan yahay argagixisada kaleeto waa mid u dhalasho ah. ninkan dhintay ma isagaa rabay inuu bartilmaameedsado mise dad kale ayaa la xiriiroo yidhi dadkaas ninkaasaa maaragtay waxna dhex mareene ha la dilo, mise iyagu ka yimid go-aanka guddoomiye ku-xigeenka in la dilo? waa mahadsan tahay. horta su-aashaasi horeyna waa kuugu sheegay. arrinkaas kiiska maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad xukunka ay fulisay in maaragtay waxaad iga su-aashid aan kaaga jawaabo. marka ninkaasi runtii horta qof aan al-shabaab maaragtay xiriir ka lahayn in al-shabaab intay maaragtay xiriir lasoo sameeyaan degdeg danahay lahaayeen ay ugu fulsadaan ma suurta geli karto. waa wax suuro geli karo aniga ilama ahan. qofkii degdeg ugu soo aamineen qarax in uu meel galsho miino uu meel geliyo qof kaleeto lagu qarxayo waa xiriir dheer oo maaragtay in badan la dhihi karo way wada xiriirayeen. taasaan ugu jawaabayaa. marka dadku way wada joogaan oo wada sheekaynayaan, laakiin qalbigooda iyo waxay qabaan iyo mabaadi'dooda ilaah baa garanayo. qofkii aan banaanka asuga iskeenin cid keeni kartaahi ma jirto.
barnaamijka galka baarista waxaa u suurtogeli weysay inuu xiriir la sameeyo cali axmed guure cali qoyane oo ka tirsan saraakiisha al-shabaab ee gobolka hiiraan hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa hore u sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi isla maalintii uu dhacay weerarku xukunka ay dhowaan riday maxkamadda milatariga ee dilka ka dhacay magaalada maxaas iyo qaraxii magaalada muqdisho oo ay ka dambaysay sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir waxay yimaadeen xilli ay dawladdu doonayso inay baadhitaan ku samayso shaqaalaha dawladda baaritaanka shaqaalaha dawladdu ayaa sargaal ka tirsan hay-adaha amnigu uu ii sheegay inay bilowdeen bartamihii sannadkan ilaa haatanna ay mareen shaqaalaha qaar ka mida wasaaradaha dawladda sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maaliyadda iyo gobolka banaadir sidoo kale waxaa sargaalkaasi amnigu ii sheegay in hay-adda nabad sugidda ee niisa ay iyaduna bilowday inay diiwaan u samayso wixii shaqaale cusub ah ee u shaqaynaya hay-adaha kala duwan ee dawladda hase yeeshee baaritaanka waxaa la dardargeliyey kadib qaraxii ka dhacay xafiiska duqa magaalada muqdisho 24kii bishii julaay ee aynu soo dhaafnay kaasi oo ugu dambayn uu ku dhintay guddoomiyihii iyo duqii hore ee muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow ugu dambaynna baadhitaankani waxa uu wada saamayn doonaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee dawladda soomaaliya oo lagu qiyaasay 5,500 qof waraysiyada la xiriira baaritaanka shaqaalaha ayaa qaarkood ay ka dhaceen goobaha shaqada iyadoo shaqaalaha qaarkoodna looga yeeray godka jilicow halkaasi oo ay joogeen shaqaale ka tirsan hay-adda nabad sugidda soomaaliya oo u tababarnaa baaritaankan qaar ka mida shaqaalaha dawladda oo maray baaritaankan waxay galka baarista u sheegeen inuu leeyahay 2 weji oo isugu jira waraysiga hore iyo wejiga labaad oo saamaynaya si baaritaanka dadka qofka shaqaalaha ah uu xiriirka la leeyahay mid ka mida shaqaalaha maray baaritaanka oo ka gaabsaday inuu magaciisa sheego isagoo u cabsanaya shaqadiisa waxa uu galka baarista u sheegay in xataa la booqday goobta uu ka degan yahay magaalada muqdisho guud ahaan galka baaristu waxa uu la hadlay 4 ka mida shaqaalaha maray baaritaankan waxayna isku raaceen in su'aalaha la weydiiyey ay ka mid yihiin magaca qofka xilliga ay heleen shaqada dawladda iyo sida ay ku heleen ama qofkii damiinka ka ahaa qabiilka qofka degmada iyo waaxda uu degan yahay inuu gurigiisa ugu jiro kiro iyo inuu leeyahay heerka mushaharkiisa iyo halka loogu shubo waxa kale oo shaqaalaha la weydiinayay su'aalo khaas ah oo ku saabsan dhinaca amniga sida inuu xiriir la leeyahay ururada xagjirka ah iyo inuu tegay dhulka ay ka taliyaan inay soo wacaan ama lacaga baad ah ay weydiistaan kooxaha xagjirka ah sida al-shabaab iyo in qofka shaqaalaha ah ay dhibaato ka soo gaartay weerarada ururka al-shabaab in xubno ka tirsan ehelkiisa ay ka mid yihiin ururka al-shabaab iyo ururada kale ee xagjirka ah iyo su'aalo kuwaasi ka agdhow su'aalahaasi waxay ahaayeen kuwo ay ka sidnaayeen 4 qof ee ula hadlay galka baaristu hase yeeshee mid ka mida 4taasi qof ee shaqaalaha dawladda ah ayaa galka baarista u sheegay in ka hor inta uusan saxeexin macluumaadka laga qoray loo akhriyay qoraal ka dalbanaya inuu oggolaado inuu shaqo kasta oo dawladda Soomaaliya u dirsato uu raalli ka yahay inuu qabto waqti kasta oo loo baahdana la heli karo hase yeeshee ma cadda in qoraalkaasi uu yahay mid loo akhrinayo dhammaan shaqaalaha dawladda iyo inuu ku kooban yahay xubno gaar ah baaritaanka shaqaalaha dawladda ayaa ah tallaabo in muddo ah ay dalbanayeen khubarada u kuurgasho dhinaca amniga waxaana saraakiisha amnigu ay ii sheegeen inay qayb muhiima ka tahay sugidda amniga shaqaalaha iyo hay-adaha dawladda hase yeeshee waxaa qaar ka mida shaqaaluhu ay walaac ka qabaan inay baaritaankan ku haraan islamarkaana ay ku weyn karaan shaqooyinkooda haddii macluumaadka la weydiiyey ay wada heli waayaan sida cid wakiil ka noqota gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracase waxa uu ka taliyaa deegaan uu sheegay inay dhibaatada ugu weyn ku hayaan xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab ee ka soo jeeda koonfur galbeed gudoomiyaha Aracase waxa uu ii sheegay in loo baahan yahay in dawladda iyo maamuladuba ay ka fiirsadaan dadka ay xilalka u magacaabayaan ninka kow markii la magacaabo in laga fiirsado oo maddiisa iyo aqoontiisa la fiiriyo horta ku fiican nin kasta oo arkan in laska magacaabo waa kan hadda sheegaysa in gudoomiyad dawlad wadanka dawladdan wakiil oo deegaankii inuu la xiriiro shabaab oo cadow ah oo cadowga islaamka cadowga Soomaaliyeed oo dhan in la xiriiro oo nin team isku inay dawladda ka sheegaan inuu saas ku dhibaateeyo waa nasiib darro ama iyaguba ay la soo xiriiraan marka dhammaan hadii kulley dawladda iyo waxaan ka codsanayaa nin kasta oo system dawladeed ku jiro oo shabaab xiriir la sameeyo in horta maaragtay sharciga la waafajiyo waxaynu ka warsugaynaa haddaba haddii barnaamijka cusub ee dawladda Soomaaliya ay ku hubinayso shaqaalaha dawladda uu soo saari karo dadka gacansaarka leh ururka al-shabaab iyo ururada kale ee xagjirka ah dhegaystayaal waxay iga xasuusinahay inaan la xiriiray wasiirada warfaafinta iyo shaqada iyo shaqaalaha ee dawladda federaalka Soomaaliya
balse iima suuro gelin inaan ku qanciyo inay xilligan waraysi